وأن السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذب كل رقبة كهضلي أدبي وقرحيان أنا أقول وحبذا قدري مايو marka hore wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaraddiisaba waxaan ugu mahad celinaynaa arrinkan fiican ee dalkeena iyo dadkeena iyo ammaankeena wax ka tari karo inay soo abaabuleen waan uga mahad celinaynaa runtii arrinkanu waa arrin taabanayo ammaanka dalka laakiin waxa la dhihi karaa sida ukuntii iyo dooradii war labada yaa horeeya ammaanka in la sugo kadib diiwaangelin la sameeya mise tanaa horeysa waxaa la hubaa ilaa waddanka uu ammaan noqdo wax badan oo diiwaangelintaasa ma suuroobayso taasaa waajiba dhammaanteena waa inaan ka fakarno ammaanka dalkan inuu sugmo oo la sugo wax kastoo lagu sugi karana awoodda la isugu geeyo waad ogtihiinoo nabi ibraahim calayhi salaam ayaa wuxuu dadkii deganaa maka ayuu ilaahay uga dalbay laba shay wuxuu u dalbay arsaaq iyo ammaan nabi ibraahim keebuu hormariyey ammaankuu hormariyey soo maaha rabbi ijcal hada albalada aamina ammaankuu hormariyey nolol ma jirto ilaa ammaan la helo nolol ma jirto ilaa ammaan la helo marka runtii waa arrin muhiim ah loo baahan yahay in awoodda oo dhan la isugu geeyo oo dalkan ammaankiisa uu sugmo kadibna diiwaangelinu markaasay suuroobi doontaa insha allahu tacaala laakiin in loo diyaargaroobo hadda ammaankii in la sugaaba dowladdu ay u kacday ahamiyaadkeeda ama awlowiyaadkeeda waxaa ugu horreeyaba ammaankee in haddana qaabkii markii ammaanka la sugo tan loo qaban lahaa in loo diyaarsan yahayna waa wax fiican arrinkan adduunka aragtida ay Soomaaliya ka qabaan haddii diiwaangelintan ay suurowdo ayaa isbedeli doonto kuwa dhahaya Soomaalidu 10 iyo hoogaa milyan waaye marka la diiwaangeliyo ogaan doonaan aad bay uga badan tahay marka tiro badan oo naloo aqoonsan laayahay ayuu diiwaangelintan ayay soo saari doontaa oo banaanka ku soo dhici doonto intaan ma Soomaali baa bay dhihi doonaan beesha caalamka waana la hubaa marka ha lagu dhaqaaqo waa wax fiican oo loo baahan yahay in runtii la dedejiyo waxaana la dedejinayaa taas horteeda ammaanka in la sugo insha Allahna waa la sugi doonaa tan kale wasiirka haddaan hoogaa kaftamo wuxuu yidhi guurkii nikaaxa keliyuu soo qaaday ee wasaaradda inta qosayse iyo cadaaladaba ma ahan intaas keliye wax walba heer oo wasiir la samaynayo wasaaradda awqaaftu iyadaa shu'uuntii diinta mas'uulka ah waa inay og tahay waa in la hubiyo diin ahaan shareecadeena ma waafaqsan tahay arrinkan dastuurkeena waxaa asal u ah kitaabka qur'aanka iyo sunnaha nebi muxamed wax kastoo diinteena khilaafsan ee xeer ahoo la sameeyaa ma soconaya haddii maanta aan arkayno waan sheegaynaa haddii hoogaa naloo hoosgeliyo aan ka ilduufnana beri baan ka daba imanaynaa waxaan leenahay war waxaan diintii ma waafaqsana taasna waad ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan dhaho insha Allah jazaakumullahu khayr wax fiican baad runtii bilowdeen ilaahay ha nagu guuleeyo oo horay ha loo socdo insha Allah tacaala wuxuu yiri guurka marka laga hadlayo cadaaladda iyo awqaafta hooga kala bixin u baahan way jirtaa wasiirkuna waaba jooga misoo bacay ha marka waxaa dhacaysa marmarna guurkiina in wasaaraddan uu jiro furiinkiina cadaaladda uu jiro Soomaa inay saas way inay xagga kale jiraan ninba waxa la yiri hangool aan soo goosanayaa buu yiri hangoolku midna saas uu sameeyay ooda la isaga celiya midna saas uu soo qorofan yahay marka ooda la jaro ayaa lagu soo jiidaa cidii baadiye ku noolaataa taqaan nin baa yiri marka hangoolkiina meel aan ku soo arkay buu yiri gantiina meel kale aan ku soo arkay buu yiri isku ma yaalaan marka labadaas naftooda in la isku keenay u baahanayeen meel la isugu geeyaba waad maasantahay wasiir